بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم وبربري آدم الأسماء مقعانك أيو بربري الله كلها دمانت هذا ثم بعد إذا عرض لهم الله وحوء بندقي مسمياتك على الملائكة ملائكة أيو بندقي فقال دينا وحوده إلهي ملائكة أنبئوني ورحمة بأسماء هؤلاء كوان مقعان طور ورحمة إن كنتم أداد أهاتين ملائكة صادقين كوهن شيئا waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay casharkeena aydii ugu dambeeyey qisadii nebiyullaahi aadam oo abulbashar ayaynu ku soo jirnay markii ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuraayey oo markaasi abuurkaas loo bandhigay malaa'igta ayaa ilaahay noo soo sheegay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi isagoo rasuulkiisa la khidaabayo waxaad xustaa sayidka maxamedka ahow waqtigii rabbigaagu ou malaa'igta u dhahay waxaan yeelayaa arladan dhexeeda khaliif ayaan yeelayaa oo waxa weeye axkaamteeda fulinteeda iiga khaliif ah malaa'igtii markaas waxay yidhaahdeen allow ma waxaad yeelaysaa arlada dhexdeeda mid arlada fasahaadinaya oo dhiig ku daadinaya miyaad yeelaysaa annagu ku nasahayna xamdigaaga annagoo ku neecan haddana ku dhahirayna oo kaa nasahayna waxaan laa'iq ku ahaynin annaga ayaa ku xaqnimo badan istikhlaafka saasay ka wadaan ilaahay markaas wuxuu dhahay innii aclamu maa laa taclamuun anigu waxaan ogahay malaa'igay waxaadan ogsoonayna oo waxa weeye khaliif in laga dhiga aadam maslaxa weyn ayaa ku sugan adinku laakiin ma garanaysiin guriyadiisa waxaa ku jira mid mudiica iyo mid caasiya adli ayaa dhexdooda ka daahiraya markaasay malaa'igtu waxay yidhaahdeenaa la yidhi hoos isu dhaheen dhexdooda rabbigayna ma abuuraayo khalqi oo waxa weeye annaga nooga karaamo badan haddana annaga naga aqoon badan maxaa yeele annagu horay annaga ayaa saabiqada u lahaynay haddana waxaa weeye waxaanu arkaynaa wax uusan markaasi arkaynin oo markaasi khalqigaasi uusan arkaynin oo aadam ula jeedaan marka ilaahay aadam u abuuraa la yidhi sidaa horey u soo marnay markii la abuuray ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtii markaasi ayaa ilaahay xujaynayaa ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wacallama alla waa barbaray aadamow dhah ilaahay al asmaa'a magcaanta ayuu barbaray magcaantan waxaa weeye asmaa'u lmusamayaad weeye waxyaabaha waxa lagu magacaabo magcaantooda weeye kullahaa dhammaanteedow ilaahay waxyaabaha hadda adduunyadan loogaga dhaqmayo weeye xeerada iyo fandhaalka iyo faaska iyo weelka iyo qarsinka waxaas ayaa la balaalayay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa qalbigiisa ku riday ilhaam ku gelisiiyey aqoonta shaygaas inuu aqoon u lahaado waxyaabaha lagu dhaqmo oo markaasi dadku ay ku dhaqmaayaan musamayaadkaas ayaa la baray markaasuu dhah ilaahay wacallama alla waa barbaray aadam al asmaa'a magcaantiioo baray kullahaa dhammaanteeda markii aadam la baray wixii asmaada ahay
oo qalbigiisa lagu sharxay ilaahay wuxuu yihi suma bacdiyeeda cara lahum alla waa bandhigay musamayaadki wixii waxaa weeye aadam la baray cala almalaa'ikati malaa'igta ayuu bandhigay faqaala dabeedna wuxuu dhahay malaa'igta asagoo ilaahay tabkiid uga dhigaaya ambi-uuni ii warrama malaa'igay biasmaa'i haa-ulaa'i kuwaan magcaantooda ii sheega wixii markaasi lagu dhaqmaayo xeeradii iyo fandhaalkii iyo weelkii iyo waxa weeye dhereygii iyo waxaas ayaa lasoo dhigay halkan aadamna markaasi meesha ayuu taagan yahay waana la barayo asagoo korkau ka yaqaanaa malaa'igtigaa marka ilaahay wuxuu dhahay ii warrama biasmaa'i haa-ulaa'i waxyaabahan musamayaadka magcaantooda ii warrama in kuntum haddaad ahaateen saadiqiina kuwa kun sheegaayo oo aad ku run sheegaysiin inaanan abuureynin wax idinka cilmi badan haddana waxaa weeye idinku khaliifnimada aad ku xaq leedihiin markii sidaas ilaahay uu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen o dha ilaahay malaa'igti subxaanaka ilaahu nasahnaantaadii tanziyahnaa laka allaw kuu sugnaatay ilaah waxaad ka nasahan tahay ictiraal in lagu caarido lagaa hor yimaado laa cilma cilmi lana annaga nooguma sugnaanin ilaa maakii mooyaane calamtana aadna bartay ilaahay waxaan aqoon u leenahay oo waxaad adiguna bartay ahaynin annagu ma naqaano wax walbana ilaah waad ka nasahan tahay oo aan laa'iq ku ahaynin laa cilma aqoon lana annaga nooma sugnaanin ilaa maakii mooyaane calamtana aadna bartay inaka adiguna anta adigu ta'kiid weeye allow alcaliimu allee ku cilmila ayaa tahay shay kasta alxakiimu allee fal suuban ayaa tahay oo shayna waxaa weeye cilmigiisa xigmadiisa uusan ka baxaynin shay walbana waxaa weeye maxalkiisa dejinaaya allow sidaas ayaa ta yidhaahdeen sidaas markii waxaa weeye ay u xujoodeen malaa'igti qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ou aadam u dhahay yaa aadamu aadamow ambi'hum u waran biasmaa'ihim kuwaan magcaantooda u sheegoo malaa'igta u sheegaa la yidhi oo u sheeg waxa loola jeedo magacooda u sheeg xigmada loo jideeye oo loo sameeyo loogu dhaqmaayo u sheeg ayaa la yidhi qaala ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa aadamu aadamow ambi'hum u khabar biasmaa'ihim musamayaadkan magacaantooda u sheeg sidaa markii la yidhi fasamaa kula shayin biismihi wadakara xikmatahu allatii khuliqa lahaa nabiyullaahi aadam shay kasta magaciisa uu ku sheegay haddana xikmada loo sameeyey ayuu sheegay oo kan sidaanaa loogu isticmaala kan sidaanaa la yeela ayuu dhahay arrintaas markay dhacday ilahi wuxuu yihi falamaa goortii amba'ahum oo u warrama aadam malaa'igti biasmaa'ihim magcaantooda u warrama musamayaadki qaala ilaahay malaa'igtii waxau u dhahay alam aqul lakum sow idiinma dhihin malaa'igay inii anigu aclamu waxaan ogahay gayba samaawaati samaawaadka qeybkooda iyo wal arli arlada wixii koonkan ku ciilan ayaan anigu caalim ku ah sow idinma dhihin maxaa yeele ilaahi subxaanahu watacaala inii aclamu maa laa taclamuuna ayuu dhahay waxaan ogahay waxaadan ogsoonayna marka hadda abuurka aadam la abuuray oo khaliif laga dhigaayo walax idinku aadan ka ogeyna ayaan anigu ka ogow dha ilaahay maxaa yeele alliga abuuray baan ah alam aqul lakum sow idinma dhihinow dha ilaahay inii anigu aclamu waan ogahay gayba samaawaati samaawaadka qeybkooda iyo wal arli arlada koonkan waxa ku ciilan ayaan ogahay ilaahay isaga wax kama ciilane qeybku waxa weeye markii loo nisbeeyo makhluuqaadka weeye wa aclamu waxaan ogahaw dhah haddana ilaahay maa tubduuna waxaad muujinaysaan waa markay yidhaahdeen atajcalu fiiha weeye man yusidu fiiha wayasfiku dimaa wa aclamu waxaan ogahaw dhahay alla maa tubduuna waxaad muujinaysiin iyo wamaakii kuntum aad ahaateen tagtumuuna kuwa qariya iyo wamaakii kuntum aad ahaateen malaa'igay tagtumuuna kuwa qariya maxaa yeele waxay siraysteen lam yakhluqa allaahu akrama calayhi mina walaa aclama yidhaah ilaahay wax annaga nooga karaamo badan oo nooga aqoon badan abuuri maayo xaggee loo wadaa makhluuqaana yidhaahdeen hoosay isku dheheen markaasuu dha ilaahay waxaad muujiseen oo aniga ii sheegteen iyo wixii aad qariseen intaasba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala caalim ayaan ku ahay buu dhah ilahi subxaana watacaala wadkur xusow dha ilaahay sayidka maxamedka ahow id wakti qulnaa aan u dhahnow dha ilaahay lilmalaa'ikati malaa'igti usjuduu u sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu dabeedna way sujuudeenow dha ilaahay ilaa laakina ibliisow dha ilaahay abaa sujuudi waa diiday wastakbara waana isweynaysiiyey wa kaana wuxuuna ahay cilmiga ilaahay o asaliga min alkaafiriina kaafiriinta mid kamida ayuu ahay markii waxa weeye amuurahaasu ay dhaceen ilaahay wuxuu noogaga warramayaa malaa'igtii in maaragtay yaa ilaahay uu yidhi u sujuuda aadam weeye haddii hadda masalan ba hadda la yidhahdo wadkura horta meeshaan lagu qadarayaa maxaa yeela cidda darafkeedii ciddaan oo markaasi darafa caamilkeedi yaa maxduuf weeye taqdiirtu wadkur waaye wakta qowlina ayaa laga wadaa haddii la yidhaha masalan ba qasadku waxa weeye qisada in la sheego ee waktiga in la sheega maahan waxaa la leeyahay taqdiirtan waxa weeye qisadii oo waktigaas dhacday sheeg ayaa nabiga leeyahay alayhi salaatu wasalaam
arrintaana waxay ahayd baa la yidhi nabiyullaahi aadam markii la abuuray kabacdi oo ruuxa la geliyey oo haddana waxaa weeye musamayaadkii malaa'igta loo bandhigay aadamna waxaa weeye waxyaabihii ou sheegay ayaa alla wuxuu amray ay culammada ahlu siiradu yidhaahdeen in markaasi waxaa weeye aadam ay u sujuudaan weeye sujuud oo markaasi inxino ah waxaana arrintaas keenay yidhaahdeen culummada gaar ahaan kuwa ahlu cilmu adabka waxay yidhaahdeen sheekhoodiiyou noqday aadam maxaa yeelay waxbuu baray sheekha xaqiisana waxaa ka mid a in la tacdiimiyo la weyneeyo saasaa markaasaa loo amray inay aadam u sujuudaan oo waxaa la tusinayaa maqaamkiisa ilaahay agtiisa inuu ku sarreeyo haddana waxaa weeye waxbuu baray maxaa yeelay qofka wixii ilaahay uu baray oodan adigu aqoonin markii adiga ou ku baro waxa weeye mucallimkaagu weeye waxuu kaa mudan yahay xurmo iyo tacdiimsa u kaa mudan yahay wadkur xusowdha ilaahay in waqti qulna aan u dhahnay lilmalaa'ikati malaa'igta aan u dhahnay isjuduu u sujuuda malaa'igay liaadama aadam u sujuuda sujuud oo taxiya ah oo inxinaa weeye sida loo badan yahay sujuud oo walcujabrati ahna waa la sheegay maxaa yeele ilaahay yaa iskala taasoo ilaahay qeyrkiisa hadii loo samarta waa lagu gaaloobaya laakiin culamada qaar waxay yidhahdeen haddiiba ilaahay wix uu iska lahay isaga uu bixiyo ha loo sujuudo aadam dhahay in daahirkeeda lagu fasiraxta waxba kama dhibayso labadaas qaybood ayaa mufasiriintu qaybsanta fasajaduu way sujuudeen dha ilaahay malaa'igti ilaa laakin ayuu dha ilaahay ibliiska waxaa weeye abuljinni waa leeyahy jinniga aabiis waaye oo markaasi malaa'igta ayuu dhex joogi jiray malaa'igta ayuu iska dhex joogi jiray laakiin kama mid uusan ahaynin malaa'igta ayuu iska dhex joogi jiray kana mid ma ahaynin hadda marka qisada ibliis qur-aanka waxaa lagu soo celceliyay 7 mawlacaa la yidhi suurat albaqara waa lagu sheegay suurat alacraaf waa lagu sheegay suurat alxijr waa lagu sheegay suurat alisra waa lagu sheegay suurat lkahf waa lagu sheegay suuratu dah waa lagu sheegay suuratu saad waa lagu sheegay rasuulkeena calayhi salatu salaam ayaa intaas tasriyo looga dhigayaa bani aadamkana cibraa looga dhigayaa oo waxaa la rabaa qofka caabidkaahu inuunan markaas uusan cibaadadiisa ku kasoomin midka caasigaahun inuusan quusanin maxaa yeele sida hadda markaasi alusiira ay soo wariyeen ama meelaha qaarka asarta qaarkood ibliis muddo aad iyo aad u fara badan ayuu markaasu ilaahay caabudaayay kacbul axbaar shiika la yidhahdo waxau dhahay ibliis oo laciina khaasinka jannada ayuu ahaay 40,000 oo sano weeye malaa'igtou la jiri jiray 80,000 oo sano waa wacdinaayay 20,000 oo sano ayuu malaa'igta wacdinaayay sheekh dadka wacdi ahay sayidulkuruubiyiin malaa'igta kuruubiyinta ay sayidkooda ahay 30,000 oo sano ruuxaaniyiinta sayidkooda ahay 1,000 sano carshiga ayuu dhawaafay hareerihiisa 14,000 oo sano ayaa la sheegay magacaan fara badan oo mid walba wanaag oo ku tusinaayo ayuuna ku lahay intaasoo samaawaadka laakiin lawxul maxfuuda waxaa ugu tiilay ibliis ayaa ugu tiilay asaguna qaafil ayuu ciribtiisa ka ahay marka hadda waxa loo soo celcelinaayo qofka caabidkaahoo wanaagsan inuuna kedsoominaa loo baahan yahay ousan isdhihin adiga cibaadadu sidan weeye waxa weeye maaragtay waaba beri aadba tahaba qofka markaasi oo caasigaane naxariista ilaahay inuusan ka quusanin marka ilaahay uu yidhi subxaanahu watacaala ilaa laakina ibliisow dha ilaahay isnaha munqadica laga dhigaya maxaa yeele malaa'igta kamid maaha wali bacd alculamaai markaasi sidaa hadda ou jawaabay ibnu xajar alhaytami iyo ou leeyahay markaasi istisnaa mutasil weeye ilaa laakina ibliisow dha ilaahay abaa waa diiday sujuudi waa diiday wastakbara waana isweynaysiiyey waa taw dhaha waa kutagi doona ana khayru minhu khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min diinin waa taw dhah wa kaana wuxuu ahaayow dha ilaahay ibliis cilmiga ilaahay azaliga min alkaafiriina kaafiriinta mid kamid ah saabiqadiisa ayaa xumeeday waqulnaa waxaan dhahnow dha ilaahay yaa aadamow uskun deg anta adiga iyo wa zawjuka zawjadaada xawa ah aljannata jannada dega waqulnaa waxaan dhahnow dha ilaahay yaa aadamow uskun deg anta adiga iyo wa zawjuka zawjadaada zawj ninkana waa naagtana waa leeyahay xawo weeye waxaa laga abuuray feertiisa bidixda ayaa laga abuuray sida meelo badan soo aruurtay marka xawo waxa xawo loogu magacaabaa la yidhi liannahaa khuliqat min xayin xay ayaa laga abuuray wa kulaa